السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ku guda jirnaa barashada Windows 11 casharkeennii saddexaad waxaan kusoo qaadanay sida icon ama folder loo soo samaysto. maanta casharkeennana wuxuu daaran doonaa sidee folderkan aan soo samaystay magaca uga bedeli karaa. si aad magaca uga bedeshay marka koowaad waxaad oran doontaa halkan mouse-ka aad dul geynaya right click dabeetana waxaad dooran doontaa qada kusoo bixi doonta meesha ku qoran tahay show more options marka furto waxa kusoo bixi doonta daaqad kale open ugu sareyso halkaas ayaad ka eegi doontaa meesha ay ku qoran tahay rename magac dib uga bedelid. magaca dib uga bedelid marka click siisid meesha blue ayay noqonaysaa magacii meesha ku qornaa markaas aad meel kala taaban iyo keyboard-kaaga ka soo qori doontaa magaca aad ku bedeshay. tusaale mahad oo yaryara waayahay si kale waxaad bedeli kartaa adigoo barta jooga ayaa click si doontaa folderkii aad doonaysay in magaca ka bedeshid dabeetana F2 ayaa keyboard-kaaga taaban doontaa marka waxa soo bixi doontaa sida halka ku aragtid rename click marka folderkii click siyo esaas ugu dooran yahay marka aan doornay waxa weeyaan saas uu yahay click marka siyana midabka cawlanka ayuu yeelan doonaa. F2 marka taabtana meesha blue bay noqon doontaa iyadoo baahan magaciina ka bedelo yahay way kan oo kale hadaan magaca muxaadaro doonaya ka bedelo hal mar ayaa click si doonta dabeetana F2 ayaa keyboard-kaaga taaban doonto automatically waxa highlight noqon doona oo diyaar garoobaya folderkii ama diyaar u noqonaya magacii laga bedelo haybi way hada magacii waa ka bedelay. haddaan si dib ugu xasuusiyo labada qodob ee magac ka bedelida qodobka koowaad ee magac ka bedelida waa inaad right click siiso marka Windows 11 kugu jiro computerkaaga dabeetana doorato meesha ku qoran tahay show more options oo ikhtiyaaraad badan itus oo inta ka badan click marka siiso ikhtiyaaraad ka badan kaas aan doonayna waa rename ayaa click si doontaa magac ayaad ka bedel doontaa guuleed tusaale guuleed store ayaa halkaas ku guraya faylashiisa marka folderka saas u bedelay. sidoo kale waxaan ku bedeli karaa anigoo hal mar click siiya dabeetana other keyboard-ka F2 da taabta dabeetana uu yiraahdo magaca ka bedel dabeetana ku qoro Maxamuud way casharkeena maanta kooban halkaas uu jooga fadlan kusoo biir YouTube-keena Setay Production 1 YouTube-kii hore waan ka soo guurnay Setay Production 1 ugu qornaa waxaana ka dhignay warbaahin madax bannaan balse YouTube-kan ayaa YouTube-ka cashiradeena si toos ah ku soo gudbin karno mar walba iyo goor kasta iyo xogo muhiim ah oo ku saabsan cilmiga aqoonta maanta. haddaba Setay Production 1 inaad subscribe noo saartaa waa noo muhiim. That's it.